dadka magacyada teetalka xambaarsan ee goobjooga ka halka xaadiray waxaad ogaataan xukunka shariicada islaamku arintaa wuxuu ka qabo sheekh al-islaam ibn taymiya maxamed ibn abd wahhab waxa uu yiri man lam yukaffir al-mushrikeen aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar ahad ka gaalada aan gaalo u ictiqaadin ee aan gaalaysi ama ka shakiya gaalnimadooda ama madhabkooda iyo dariiqadooda wax sax ka dhigay u arkaa wuu gaaloobay wadankan islaamka gaaladu xabaalama ku aasan karaan meydkooda waxa kale oo raacaysa kaniisad ma ka dhisan karaan jawaabahaas aan doonaynaa inaan ka jawaabno goobtan aan taaganahay waqti hore ayaan ka hadlay anigoo ka hadlaya kaniisad la dhisay oo la furay Hargeysa dhexdeeda kelmadeeduna maalinta waxaan halqabsi uga dhigay Hargeysa masaajid iyo kaniisad baa siman ma maqlaysaan adigu waxdaas badan baa dhacday meelo badan baan soo maray halkii baan taaganay maanta iyadii baan ka hadlaya maxkamad baan galay kaniisadii maalinta aan hadlay su'aalaha adag baa laga weydiiyay waxyaabihii sababay xarigeygana la barwan bay ka ahay maantana waan u taaganahay horta mas'alada sharciga aan ku dhawaaqo binaa'ul kanaa'is fi bilad al-muslimin la siyama jasiirat al-arab la yajuz qad'an wadan islaama kaniisad in laga bineeyo gaar ahaan jasiirada carbeed sinaba kuma banaana oo maxaa loo baneeyay maxaa loo diidayaa inay masaajidada ka dhisana dhulkoodii masaajidada ka dhisnay waa ku ilaahay lagu caabuday ilaahay koonka abuurtay kitaabka uu soo dejiyay nabi maxamed ka dhigay khaatimul anbiya in rasaa'ilka dhan lagu khatimo diimi hore samaawigaana nasakhay tan ee munxarifka la bedelay waxba ka jirina baadilka ka dhigay waa isagu sharciyeeyay lagu caabudo arlada meel walba inagu waxaan u diidaynaa li'annaha baytu shirki waa bayt sanam ilaahay qeyrkii lagu caabudo waa bayt sanam oo ilaahay qeyrkii lagu caabudo saasaarey u banaanay jasiiratul arab laha khaasiya laana nabiga sallallahu alayhi wa sallam qaal la yajtami fi jasiiratil arab diinan neema wuxuu jasiirada carbeed laba diimood kuma kulmi karaan ee laysa illa diinul islam laysa illa diinul islam diin islam mooyaan wax kale laga ogolayn nabiguna ka rabo diimaha kale maanta lagu soo celiyay buudiiski baa lagu soo celiyay oo kristaanki baa lagu soo celiyay oo yahuudi baa lagu soo celiyay oo mid kale imaka cusub casriga soo baxday diinul ibraahimiya oo waxba midaynaysa baa laga dhisay imaka wuxuu nabi maxamed ku dardaarmayna waa la jabiyay marka halkan Hargeysa maalintii axada munaasabad baa ka dhacay munaasabadaasi intaanan u gelin yaa lagu aasi karaa odayaashii aqliga badnaa berbere kaga saxeynaa lagu aasin laakiin markii dagaalkii dhacay labaad xoog buu ugu aas laguma aasi karo markay maraasim leeday macnaha tashriif iyo hay'ad qaab diineed marka wax loo aasayo laguma aasi karo laakiin kaafir baqtiyay oo hadduu doono dhulkaba u dhashay carrada lagu duugaya waa la qarinaya wax aba yaraatee boorka lagu duuga mooyo wax kale lama samaynayo wax maraasim oo la samaynaya oo hay'ad qaab waxa loo aasi ma jiraan qurunkiisa waa bashar binaadan oo iska qarinayna wax kale ma leh laakiin hadday maraasim samaynayaan way qaadayaan wadankooda geynayaan wadanka kuma aasi karaan mamnuuc حرام ويا تاس ممنوع حرام ويا ما بنانا مركز ويا هل كم حاجة داعية مركز وحلا لي ما أنت يا حدي وما أنت إيرادان قالوا والله الحسنى وحبان الحسنى ما أنت حدا ما أنت كنيسة ده أنك هدلي وعلى الشريعة الإسلام كنيسة وطن الإسلام اللي جمدي سكرة حدي وطن كقال الله هيدا الله قبصدي وهالشيء سيكون كلام نو داعية وحي نو دسنا وانسلمنه ولا جاي ليا لكن خنشر الله ما مريكره دمنا الله ما ضيعتني كره إلا يكدو ميسو واتين لوجو يمي ميران لوجو مناسل كذا إسلامي هاي أصلا بالله ما بينين كره maalintii kaniisada mowqifka sharciga anagu cadeeyay wuxuu ahaa kaniisada in cagaf la mariyo ama bakhaar ka dhigato dawladdu istooray wax dhigato sidaana waa loo isticmaali karaa laakiin xeertata markii la sameeyo wasaaradda awqaaftiyo wadaadda waxay isku afkarteen in la xidhana diinta kuma jirtee in laga takhaluso madaahirteeda iyo maxaan ku rahaa amaaraadkeeda iyo tilmaamaheeda oo dhan bay in la yiraahdo dadka waa la xidhay ma yahay haba la xidhay haday xarigii ku joogayso dee dhalaan raad weyn baynu naho waana la khiyaameynaya maalintaba khiyaamada socoto waa arkaynay lama xidhine dhabaha tooraha ayay ahaayeen oo qulqul binaadan oo baabuur iyo dad way ku qulqulayeen sida jiiraankeedu noo sheegay warbaahinta waxa soo faafiyay jiiraankeeda idan hariya habeen laguma kala baxo hadaa tiraahdo war wadaadu ma ahay way xidhantayna orado intaad kamarada ku rakibto kamaradahana gaar cadaalada u dir bal kamarada waxa ka soo baxay loo eegi doonaa ayaynu eegi doonaa diyaarka hariya habeen ba wixii galaya ka baxay qabanaysa taa maxaan ka tiigsanaynaa duhur dharaara maalintii axadii wafdi ingiriiska ka yimi iyo wafdi Soomaaliland oo reer Hargeysa anigu hebelow iyo heblaayo idin oran maayo ama dhaqaatiir noqda ama siyaasi noqda ama abwaari noqda ama sheeko kale noqda ama indheer noqda waxa doonaysaan baa noqda meesha deedinka ay soo dhigay banaan intii umada hormuudka u ahayd ayaa markaa meesha taagtaagnay oo si fiican looga dheehanayay hanoo muusaynine mabdiina cadaystaan leen hanoo muusaynine mabaadida ay leedihiin umada u sheega tuhmadna waa idinka qabnaayeen asbaabna way leedahay tuhmadaas iskamaanaan kiin tuhmine asbaabay leedahay ilaahay subhanahu wa
وتعالى ما أقولان من بنين مباشرة الدعوة لغير دين الإسلام في بلاد المسلمين في جزيرة العرب ولا في غيرها. إلهي مرنا ما بنين دعوة كباقي الدين وأن إسلام ما هين إلا لي ما دو دمر إسلامك لولك جزيرة عربية يميرك لطورة ببنانا إن الدين عند الله الإسلام دين إسلام بالأقلي كواس الدعوة مرها له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بالشيء. إلهي ما دعوة الحق عليه أصنام تيوحى العابدة يعني وحي أتشيب يعني ما جرت دعوتنا مرها دين كلا الله باقي كرانا ما جرته. إلهي بقرآن كويري ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أحد كدين بالرادية وحن إسلام ما هين سينما الله باقبل يا الدنيا آخرتنا آخر ملك اللي يمادنا ومدها لاكسمي أو خساري جملتها لاكسنتين خسارتين وكجرة مالك قيامة هدا دون إنسان إلى هلاكسنتين أو خسارتان هل خسار مريسان وإلا هديك لنا توبة عيني إنسان توبة وحن كروت المامية ودنك وحا كجرة إشارة خضراء معناها بلو ليركع جريم كاي دوغدا أبا الشيء إني بنانت هاي ديمو هاي لفافيو وحن الله خلافي شرائع السماوية وأعراف الأرضية شريعة دي لهاي السماء كسودتشيه أو وحن قولين إيا أعراف بني آدم كقوانين توضع جاي دكتور إذا كون دكتور با خلافتين ووحا كو قرن دستور كان وضعي شريعة خلافسن دلك الدين كله لغما فافي كرا كو قرن هاد عاد با خلافteen diin kala lagu faafinaya maalintii dhaweyd odayaashii al-amr bil ma'ruf halkan nagala hadleen waxaanay noo sheegeen dadkii kristaanka faafinay waxba laga qaban waayay rag iyo dumarba waxaanay wayba hoos noo yiraahdeen gabadha reer Hargeysa way hadasho waxay tiri xaba naga qaadi kari maysaano ninkii odayga ahaa al-amr bil ma'ruf kamid aha wali waan ka xishoonaya odaybaa tahay wax kalaan kugu sameyn lahaa hase yeeshee rag baan isagno waxba naga ma qaadi kartaan 10 kun oo qoysna waan haynaa anagu 10 kun oo qoys baan haynaa bay dhahay Hargeysa 10 kun oo qoys ay hayaan maxaa ku haray waa sida ay sheeganayaan marxaati loo hayo dhinacna waa loo dhaqaaji waay bal hadday shaqeynaysa dacwadii reeraha mas'uulka ka ahayd bay telefoonka wada diraysaa buuli mid ay lacag u dirayso mooji mid ay la hadlayso mooji mid ay wax u sheegayso mooji waxbay saaysto daba dhigayaan halkan kaniisada la furaya waa la xidhay baa la yiri been bay noqotay maanta oo ma xidhna xaddi baa lagu beeniyay xidhnaanta markii la qabtay maraasimta loo aastiimeed oo la leeyahay askartii Ingiriiska dagaalkii labaad ee adduunyada kaga dhimatay koow waa midan hore u soo sheegno shariicada islaamka kuma banaana wadanka in aastiimeed Kiristaaniyo mid Yahuudi iyo mid Majuusiyo mid wax bula mid naba lagu qabto intaba waa lagu qabtay kii Kiristaankana waa lagu qabtay Buudiiskii Chinaha ahaana waa kii dadka dhuxulaha ku gubayay Soomaha way ka dhacday waxa kaloo ka dhacay kaniisadii oo had cad furan oo xaflad lagu dhigay ma haysa indhaha gooshana ay gabadhi masuuji baa la oran jiray gabadhi maxay ahayd masuuji baa la oran jiray gabadhi barigi furtay maxay ahayd gabadhi magaceed waan iloobay gabadhi maalintii soo dushay tir shaqo weyn baan qabto tabarruc oo maxaad furtay kaniisad baan furay bay tiri kaniisadii maalintii ay furtay anigu sanad ka hor baan ogaa waan ka sii hadlay waayo waxa ku faanay qolada markaasi Roman Catholic boobka weyn ee halka jooga ee markaa ayaa ku sii faanay Geeska Afrika kaniisad baan ka furay iyadoo wali la shaacin hal sano ka bacdi jeelkaan ku maqlay 16 baan soo baxay aakhirkiisii dabadna 6 bilood ay meesha fadhiday dabaraysay sidii oo furi lahayd oo kulba dhaqaatiirta wadanka lagu daweeyo ku soo dhex gabanaysay markii dambana way iclaamisay markii dambe waxa lagu yiri already way iska dhamaatay gabadhina waa la mustaafriyay kaniisadina waa la xidhay dalaan baa qurux ari baa qurux loo garaacaya ari ayaa qurux loo garaacaya dad yahow waa sii jeedaan baan idinku leeyahay bal ma idin soo jeesan waxaan se ku soo khatimayaa dadka magacyada teetalka xambaarsan ee goobjooga ka halka xaadiray waxaad ogaataan xukunka shariicada islaamku arintaa wuxuu ka qabo sheekh al-islaam ibn taymiyyah maxamed ibn abdulwahhab waxa uu yiri man lam yukaffir al-mushrikeen aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar ahad ka gaalada aan gaalo u ictiqaadin ee aan gaalaysi ama ka shakiya gaalnimadooda ama madhabkooda iyo dariiqadooda wax sax ka dhigay u arka wuu gaaloobay والله تبارك وتعالى سمى المشركين كفارا إلهي قالوا وحكومة عابي قالوا وجعل مأواهم جهنم هو يقولون وحكومة دقي جهنم النار تليل هذا أيوه ينيان أوغادا نك جهنم وهو ينيو كوا آيات راعي سامر كاسويا إلهي وحلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية كوا قارض أبالي اسكو صدوا ضبع أهل كتابك إيا كوا مشركين تا وحويا في نار جهنم وانا الشر البرية بلا يكتل المامي مخلوق وحال الله أبوري والشر بديه هل كان محاي نوغا صوبحي
nimanku waa gaalo ilaahay baa ku magacaabay nimanku waa ahlu jahannam ilaahay baana u gartay oo caqiidadooda xun baa geysay qofka odhan waaya waa gaal qofka odhan waaya waa sax inay gaalahina ka shakiya qofka yidhaahda maya wax saxa bay hayaan ama diimuhu waa wada sax yidhaahdaa waa gaal hadduu islaam ahaa waa murtad diintu ku soo noqonaya waa shahaadanaya haddii kale wuxuu lahaabaa la marinaya hadday markaa jirto maxkamadda islaamu qaayimi waa inuu ashahaato qofka maanta ku saboodaya sax u arkaa waa inuu ashahaato hadduu islaam ahaa hadduu wax kale huursanayna isagay u taalla anagu taa maantan sheegin meeshan dee waa la eg shaaca la qaaday soo maaha mar haddii shaaca la qaado dee annaguna diirkaanu ka rogayna waxba qarin mayno waxaanaan canaananaya warbaahintao dhan oo niman baa iska facebook iyo ku hadlaya iska odayaal iyo dhalinyaro warbaahintaay idinka qudhiina ma ishaarada idin taagan hadday tahay maya dee waxaan idin leenahay xaqiina qaata ila waajib baa idinka saaran ummadda soo maaha ummadda inaad u soo bayaamisaan waxa cusub ee soo tajaduda shar iyo khayr midkaad uga digaysaan iyo midkaad ku boorinaysaan waa mid wadaadow idinkana